السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa shabakada wararka ee Garaa TV qodobada aad xilligan ay daawan doontaan waxaa kamid ah Somaliland oo si kulul u cambaaraysay aqoonsiga ay dawladda Soomaaliya siisay maamulka SSC Qaatumo iyadoo ugu baaqday inay si degdeg ah uga laabato madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab kaga dhawaaqay magaalada Xudur ee Koonfur Galbeed. cabsi xoogan oo laga qabo in khilaafka siyaasadeed ee maamulka Puntland oo mar kale isku bedelo gacan ka hadal isla markaana la isku farasaaro magaalada Garowe. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo cagta mariyay fariisimo ay iska lahayd kooxda Al-Shabaab. akhbaaraadka dibaddana waxaan idinkugu soo gudbin doonaa xaaladihii ugu dambeeyay ee dagaalka Israel iyo Falastiin. qodobada iyo wixii kale ee soo kordhaba waan idin soo gudbin doonaa haddii Allah awood leh sidaas raali ka noqday diyaar garooba saaxiibayaal. isku soo laabashaha boon mar kale halkani waa Garaa TV. xasuusnow haddii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan. Somaliland ayaa si kulul u cambaaraysay aqoonsiga ay dawladda federaalka ee Soomaaliya siisay maamulka SSC Qaatumo ee xaruntiisu ay tahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Somaliland ayaa ku tilmaamtay tallaabadani dagaal ka dhanaha jiritaankeeda sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Hargeysa. aqoonsiga ay dawladda dhexe ee Soomaaliya siisay SSC Qaatumo waxay Somaliland ku tilmaamtay weerar cad oo ka dhanaha qarannimadeeda. war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in Somaliland ay haysatay madax-bannaanideeda in ka badan 32 sannadood isla markaana ay ka hirgelisay xaduudaheeda nabadgelyo, amni iyo dawlad dimuqraadi ah ayna si weyn uga qayb qaadatay horumarinta nabadda iyo xasiloonida gobolka. laakiin tallaabada dawladda Soomaaliya ay tahay mid khatar gelinaysa amniga gobolka. Somaliland waxay ugu baaqday dawladda dhexe ee Soomaaliya inay si degdeg ah uga laabato gabi ahaanba taageerada ay siinayso SSC Qaatumo. qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda oo dhammaystiran waxaa lagu yiri xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland waxay si adag uga soo horjeedaa aqoonsiga rasmiga ah ee dawladda Soomaaliya ay siisay maleeshiya beelood ka taliya magaalada Laascaanood ee Somaliland. xukuumadda Somaliland waxay si adag u cadeynaysaa in aanay Soomaaliya iyo maleeshiya beeleed midna ka talin ama sheegan Laascaanood. aqbalaadda Soomaaliya ee ku dhawaaqida maleeshiyada waa weerar bareer ah oo lagu soo qaaday qarannimada iyo wadajirka Somaliland iyo xaduudaheeda 26 Juun 1960. waa wax laga naxo oo qatar ku ah xasiloonida geeska Afrika. warka ka soo baxay dawladda Soomaaliya. Somaliland waxay haysataa madax-bannaanideeda in ka badan 32 sannadood iyadoo ka hirgelisay xaduudaheeda nabad, amni iyo dawlad dimuqraadi ah. intaa waxaa dheer waxay si weyn uga qayb qaadatay horumarinta nabadda iyo xasiloonida gobolka. si kastaba ha ahaatee tallaabada ay dawladda Soomaaliya dhowaan ku martigelisay oo ay ku aqoonsatay hogaamiyaasha maleeshiyada Somaliland diidka ah ee Muqdisho ku sugan ayaa si weyn u khatar gelinaysa nabadda iyo nabadgelyada gobolka, taasoo cadeynaysa in dawladda Soomaaliya ay ka qayb qaadanayso horinta dagaalada iyo xasilooni darrada ka jira magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. xukuumadda Somaliland ayaa ugu baaqaysa Soomaaliya inay gabi ahaanba ka laabato taageerada ay siiso maleeshiya beeloodka Laascaanood. waxaan sidoo kale u soo jeedinaynaa beesha caalamka inay cambaareeyaan aqoonsigani maadaama uu khatar ku yahay xasiloonida guud ee gobolka. waxaanu sidoo kale ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada ay qusayso inay ixtiraamaan xaduudaha Jamhuuriyadda Somaliland ee caalamku aqoonsan yahay oo ay wada hadal micno leh yeeshaan si loo gaaro nabad iyo ammaan.
xukuumadda Somaliland waxay weli ku adkaysanaysaa baa lagu yiri warmurtiyeedka in shacbiga Somaliland nabad xasilooni iyo barwaaqo si ay u helaan. waxaan sii wadi doonaa dadaalada iyada ku aadan aqoonsiga madaxa banaanida iyo abuuritaanka xiriir faa'iido u leh beesha caalamka iyo Somaliland. dhinaca kale gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee UCID Engineer Faysal Cali Waraabe ayaa xukuumadda iyo shacabka Somaliland ugu baaqay in loo diyaar garoobo sidii laascaano dib loogu soo celin lahaa gacanta Somaliland xoog iyo xeelad mid ay ahaataba. isagoo kula hadlay warbaahinta magaalada Hargeysa xilli uu dib uga soo laabtay safar dibadeed ayuu Faysal Cali Waraabe sheegay in Somaliland ay diyaar u tahay inay la hadasho waxgaradka SSC balse marka hore ciidamada kale ee gurmadka ku yimid laga saaro. hadalka Faysal Cali Waraabe ayaa ku soo aaday xilli dowladda Soomaaliya ay SSC qaatimo u aqoonsatay maamulku meelgaara. sharafteeni waa inaynu soo celinaa ciidanka tayeynaa oo aynu xuduudaheena tagnaa. waanu jecelnahay in aanu wada hadal ku dhamayno laakiin waa inay ka baxaan Macedoland oo ula jeeday maamulka Puntland ayuu yiri Faysal Cali Waraabe. shacabka gobolka Sool iyo garaadada ayuu ugu baaqay inay miiska wada hadal ka yimaadaan si gobolkaasi mar kale aanay colaadi uga dhicin. waxaan leeyahay 100 wado oo aynu ku wada hadalno ayaa inuu caado ahaan jirtay. isagoo uga digay Faysal Cali Waraabe in dad kale ay soo isticmaalaan waxgaradka iyo isimada gobolkaasi. si kastaba ha ahaatee falcelin xoogan ayaa ka dhalatay tallaabada ay dowladda Soomaaliya ugu aqoonsatay maamulku meelgaara SSC qaatimo iyadoo sidoo kale sheegtay in ay wada shaqayn la yeelan doonto. wasiirka arrimaha gudaha oo uu hareer joogay hogaamiyaha SSC qaatimo Cabdulqaadir Firdhiye ayaa arrintaasi kaga dhawaaqay magaalada Muqdisho kadib dhowr toddobaad oo halkaasi ku sugnaa hogaamiyaha maamulka ku meelgaarka ah ee SSC qaatimo Cabdulqaadir Firdhiye. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo gaaray magaalada Xudur ee gobolka Bakool ayaa kulamo kala duwan la qaatay odayaasha dhaqanka maamulka gobolka midka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Xudur. kulamadani oo madaxweynaha ay ku wehelinayaan gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa looga hadlay u diyaar garowga bilaabidda wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. madaxweynaha ayaa halkaasi uga dhawaaqay qorshaha dagaal ee maamulkaasi kaasoo lagu sifeynayo kooxda Al-Shabaab iyadoo maamulka iyo bulshada ku dhaqan gobolka Bakool ay u xaqiijiyeen in ay diyaar u yihiin in kooxda ay ka xoreeyaan deegaanada iyo guud ahaanba dalka isla markaana ay garab taagan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. dagaalka dhinacaas waa ka soo dhamaaday labadani dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaan rabnaa inaan xoojino oo isku imaano. Jubbaland ma tegi karno haddaan Koonfur Galbeed la xoreynin xeebta Baraawe ka soo bilow ilaa Ceel Barde inaan Koonfur Galbeed xoreyno waajib ayay nagu tahay ayuu ka sheegay magaalada Xudur madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. si aan Jubbaland u xoreyno oo xoogeena u geyno waa inaan Koonfur Galbeed xoreyno oo kama tallaabsan karno. waxaan rabnaa in annaga oo jidka ku soconna oo qalabkeena wadana aynu socod ku tagno Jubbaland sida uu sheegay madaxweynaha. sidoo kale waxa uu faray mas'uuliyiinta degmooyinka la haysto ee maamulkaasi inay u diyaar garoobaan dagaalka isla markaana dowladda ay xoogeeda iskugu keenayso Koonfur Galbeed oo muhiimad gaar ah u leh gulufka ka dhanka kooxda Al-Shabaab. maamulada degmooyinka la haysto ee madaxdoodu halkani joogaan waxaan u sheegayaa ha u sii diyaar garoobaan sidii shabaab looga nadiifin lahaa oo dadka deegaanka mashaariic loo gaarsiin lahaa isla markaana ay nolol buuxda u heli lahaayeen. ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo iskarabsanaya ayaa guulo wax ku ool ah ka gaaray wejiga koobaad ee dagaalka oo haatan gabangaba
kaasoo lagu xoreeyay deegaano iyo degmooyin muhiim ah oo sanado badan ay gacanta ku haysay kooxda al-shabaab. sidoo kale waxaa kooxda laga dilay horjoogayaal iyo maleeshiyaad fara badan iyadoo laga burburiyay xarumo ciidan iyo goobo kayd u ahaa. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa muddo 2 bilood ah ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug, halkaasoo uu joogay soo gabagabaynta wejiga koobaad ee dagaalka argagixisada oo ka bilowday bartamaha sanadkii hore gobolka Hiiraan ee dhaca dalka bartamihiisa, halkaasoo laga sifeeyay deegaanadii iyo degmooyinkii ugu badnaa kooxda al-shabaab, iyadoo hadda meelo fara ku tiris ah ay ka joogaan shabaabka Galmudug iyo Hirshabeelle. xasan sheekh maxamuud ayaana sida muuqataha wejiga labaad ee dagaalka kaga dhawaaqay magaalada Xudur ee Koonfur Galbeed, halkaasoo shacabka Koonfur Galbeed iyo ciidamada xoogga dalka ay iska garabsan doonaan si lamida wejigii koobaad dagaalka lagu ciribtirayo al-shabaab. wararka naga soo gaaraya gobolka Nugaal ee Puntland ayaa waxay sheegayaan in weli xaalado kacsanaana laga dareemayo magaalada Garowe ee xarunta maamulkaasi, kuwaasoo u dhaxeeya xubnaha mucaaridka iyo xukuumadda Siciid Deni. siyaasiyiinta mucaaridka ah oo ay ku jiraan xubnaha murashaxiinta ee la tartamaya Deni ayaa shir ku yeesheen magaalada Garowe ka soo saaray war-saxaafadeed ay ku sheegeen in madaxweynaha uu abaabul dagaal ka wado gudaha magaalada Garowe. xubnaha mucaaridka ayaa ku eedeeyay madaxweynaha inuu damacsan yahay inuu awood ku maqooniyo cid kasta oo ka soo horjeeda qorshihiisa, sida ay hadalka u dhigeen, taa oo ay sheegeen inaanay soconaynin. sidoo kale waxaa qoraalka ka soo baxay dallada ay ku midaysan yihiin mucaaridka Puntland lagu sheegay in Deni uu ka shaqeynayo isku horimaad ka dhaca caasimadda si ay mar kale colaad uga dhacdo magaalada xarunta u ah Puntland ee Garowe. mucaaridka ayaa sidoo kale ka digay in ciidamada gaarka ah ee BNPF-ta loo adeegsanayo caburinta shacabka iyo siyaasiyiinta ka soo horjeeda madaxweynaha, iyaga oo sheegay in loo diyaarinayo dagaallo mar kale ka dhaca Garowe si lamida kuwii horey uga dhacay Garowe iyo Boosaaso. waxaan ka digaynaa in ciidamada BNPF-ta Puntland imaaraadkuna uu gacanta ku haya loo adeegsado caburinta shacabka iyo awood marooqsiga. waxaan aad uga xunnahay inay ka qayb qaateen dagaaladii Garowe iyo Boosaaso, haddana loo diyaarinayo dagaal hor leh, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay xubnaha mucaaridka ee Puntland. fariimaha ka imaanaya dhanka mucaaridka iyo tallaabooyinka ay qaadayso madaxtooyada ayaa uga sii daraya xaaladda cakiran ee Puntland, waxaana la isku hayaa arrinta doorashada madaxtooyada. si kastaba lama oga sida ay wax noqon doonaan, maadaama labada garab ee ishayaha dhinac kasta uu ku adkaysanayo go-aankiisa iyo damaca siyaasadeed ee Puntland. dhinacyada ayaana hadda u muuqda inay abaabulayaan xaalad dagaal, iyadoo shacabka caasimadda Puntland ee Garowe ay cabsi weyn ka qabaan in mar kale halkaasi lagu dagaalamo, sidii dhacday horaantii sanadkani, halkaasoo lagu dilay gacan qaada dhex maray ciidamada ammaanka Puntland iyo kuwa taabacsan mucaaridka 30 qof oo aan waxba galabsan. madaxweyne Siciid Deni ayaa ku adkaysanaya in Puntland laga qabto doorashooyin qof iyo cod ah, lagana gudbo hanaankii baarlamaaniga ee 25 sano ay ku dhisnayd Puntland, halka mucaaridkuna ay sheegayaan in bilaha kooban ee u haray Siciid Deni aan dalka looga hirgelin karin doorashooyin qof iyo cod ah, sidaa daraadeedna lagu laabto hanaankii baarlamaaniga ahaa iyadoo la dadejinayo doorashada. Siciid Cabdullaahi Deni waxa uu horey u sheegay inaanu qorsheynayn muddo kororsi uu ku samaysto kursiga madaxtooyada, hase ahaatee marka la eego hadda waqtiga u haray iyo inaan doorashooyinka weli la bilaabin, taa waxay muujinaysaa in waqti dheeraad ah uu sii joogi doono madaxtooyada maamulkaasi. wararka ka imaanaya gobolka Bakool ayaa waxay sheegayaan in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa daraawiishta Koonfur Galbeed ay howlgallo culus ka sameeyeen gobolkaasi oo ay ku xoogan tahay kooxda al-shabaab. ciidamada huwanta ayaa howlgalladani si gaar ah uga fuliyay agagaarka degmada Tieglow, iyaga oo bartilmaameedsaday deegaano ay joogaan xubnaha al-shabaab. deegaanada ay gaareen ciidamada ayaa waxaa ka mid ah Ceel Garas,
dudumaal waraabe moora harag oo qiyaastii 45 kilomitir u jira degmada Tieglow ee gobolka Bakool. taliya ku-xigeenka guutada 9aad qaybta 6aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle Yunis Aadan Xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ujeedada howlgalkani uu ahaa inay al-shabaab ka saaraan dhulkaasi ayna ku guuleysteen. sidoo kale waxa uu tilmaamay inay burburiyeen saldhigyo ay kooxdu ku lahayd halkaasi kuwaasoo ay ka soo abaabuli jireen weerarada ay la beegsato ciidamada huwanta ah ee xoogga dalka iyo koonfur galbeed. Yunis Aadan Xasan oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay inay sii wadi doonaan dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan dhulkaasi si looga sifeeyo dagaalyahanada shabaab. xaaladda ayaa haatan mid kacsan mana jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca al-shabaab oo ku aadan howlgalladaasi ay guulaha ka sheegatay dowladda dhexe. Bakool ayaa ka mid ah gobolada ay ku xoogan tahay kooxda al-shabaab waxaana dhawaan la filayaa inuu ka bilowdo wejiga labaad ee dagaalka sifaynta al-shabaab iyadoo hadda magaalada Xudur ee gobolkaasi uu kaga dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wejiga labaad ee dagaalka argagixisada al-shabaab. waa hagaag imikana aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Israa'iil iyo Falastiin. ciidamada Israa'iil ayaa iskaga baxay xerada qaxootiga ee Nuur Shamis ee ku taala magaalada Tulkarem ee daanta galbeed ee Gaza kadib 30 saacadood oo ay howlgal ka wadeen ciidamada Yahuudda halkaasoo ay ku dileen 20 ruux halka boqolaal kalena ay ka soo xireen. xerada ayaa sidoo kale waxaa la geliyay go'doon iyadoo ay Yahuuddu ka jartay biyihii iyo korontadii. ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay xalay in ay duqeeyeen 100 goobood oo ku yaala Gaza. inta badan goobaha la duqeeyay waa dhismayaal ay shacab deganaayeen iyadoo tan iyo maanta laga soo saarayo halkaasi dadkii ay ku dumeen dhismayaasha. dhinaca maamulka Gaza weli ma aanay soo bandhigin khasaaraha duqeynta laakiin saacadaha soo aadan ayaa la sugayaa inay shaaca ka qaadaan tirada shacabka ku dhintay boqolkaasi goobood ee Yahuuddu ay duqeysay. ciidanka Israa'iil ayaa bilaabay qorshe ay dadkii deganaa kaga daadgureynayaan magaalada Kiryat oo u dhow xadka Lubnaan iyada oo deegaanada halkaasi ku dhow toddobaadyadii u dambeeyay ay dagaalo culus ku dhex mareen ciidanka Israa'iil iyo dagaalyahanada ururka Xisbullah ee wadanka Lubnaan. xaaladda Israa'iil iyo xasuuqa ay sahnuuniyadu ka wado dhulka reer Falastiin ayaa soo jeediyay indhaha caalamka iyadoo dowlado cusub ay sheegeen inay garab istaagayaan safaaradahoodana ka furayaan dhulka Falastiiniyiinta. dowladda Colombia ayaa safaarad sheegtay inay ka furanayso bartamaha magaalada Ramallah oo xarun u ah maamulka Falastiiniyiinta ee Abbas. sidaas waxaa yiri madaxweynaha Colombia Gustavo Petro oo si adag u cambaareeyay ficilada Israa'iil ay ka wado daanta galbeed. ergeyga gaarka heshiinaha u qaabilsan bariga dhexe ayaa sababta xiisada Israa'iil iyo Gaza ku tilmaamay damaanad la'aanta xasuuqa Falastiiniyiinta isagoo kula kulmay dhigiisa Ruushka magaalada Dooxa ee xarunta Qatar oo ahaa xarunta diblomaasiyadeed ee dagaalka Israa'iil iyo Xamaas. lugtii ugu horeysay ee socdaalkiisa gobolka ergeyga Shiinaha ee bariga dhexe Shan Jun ayaa ka degay dalka Qatar isagoo u xaqiijiyay dhigiisa Ruushka Shiinaha in ay la safan yihiin Moscow dadaalkooda ah inay gacan ka geystaan dejinta xiisada Gaza. Shiinaha iyo Ruushka ayaa isku mowqif ka arrinta Falastiin. Shan Jun ayaa laga soo xigtay inuu yiri maalin kadib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu wada hadallo la yeeshay madaxweyne Xi Jinping kulan naadir ah oo ka dhacay magaalada Beijing. dhinaca kale madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu sheegay in dagaalada Israa'iil iyo Ukraine ay yihiin kuwa saameynaya amniga Mareykanka. waa arrin muhiim u ah amniga qaranka ee Mareykanka in Israa'iil iyo Ukraine ay ku guuleystaan dagaaladooda ay ku jiraan. sidaas waxaa sheegay madaxweyne Joe Biden oo khudbad naadir ah ka jeediyay telefishin ku yaala aqalka cad
ee Oval Office taasoo ka dhigaysa inay sii qoto dheeraynayso doorka Mareykanka ee ku lug lahaanshiyaha dagaalka ka socda labadaasi wadan. Biden waxa uu sheegay in haddii gardarrada caalamiga ah loo ogolaado inay sii socoto in isku dhacyada iyo fowdadu ay ku sii fidi karaan qaybaha kale ee adduunka. Xamaas iyo Putin waxa ay matalaan halise kala duwan ayuu yiri Biden, isagoo sii raaciyay laakiin waxay wadaagaan in labadooduba ay rabaan inay gabi ahaanba baabi'iyaan dimuqraadiyadda dalalka la dariska ah. wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka waa naga inta. nabadgelyo.